walaalayaal sidaa wada dareemayseen qaybta carabidana aad ku fahmayseen waxaanu ka warramaynaa mujrimiinta ilaahay ka durkay islaamka necab diintu ay u soo urayso ee shaqada ka dhigtay inay nebigeenna aflagaadeeyaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaynu uga hadli doonnaa 3 qaybood qaybtii aad ku dhagaysateen khudbadda carabida ah ee nebiga ilaahay heerkuu gaadhsiiyey iyo fadliga uu leeyahay iyo khasaa'ista lagu manaystay ee uu cidda kale kaga soocan yahay dib baynu insha allahu kaga hadli laakiin waxaynu si gaara u tilmaamaynaa horta in nebiga la aflagaadeeyaa ma imikay bilaabatay si haddii la maqlo maxaa ka waajiba waynu ka hadlitaa qodobka labaad qofka nebiga caaya ama cay cad oo sariixa ha noqoto ama mid sarbeeba ha noqoto xukunkiisu waa maxay kaana waa ka hadlaynaa waxaa kaleynu ka hadlaynaa guud ahaan nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa inagala gudboon 3daa qodob ayaynu khudbaddeenna insha allahu ku gaar yeeli doonnaa walaalayaal in nebiga la aflagaadeeyaa maanta ma bilaaban qoladanna qolada bilaabay ma aha waxay ka mid yihiin silsilo soo jireena oo weligee soo jirtay nebigeennuun maahee nebiyada oo dhan baa lagu salliday mujrimiin wanaagga ka ba'aya oo xumaanta jecel markaasaa wuxuu rabbi leeyahy wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin nebi walba waxaanu u samaynay cadow mujrimiinta ka mid ah aayadda markaa waxaa lagala baxayaa hadduuba nebi la colloobo inuu mujrim noqonayo aayad kalena waxay leedahay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin shayaadiina alinsi waaljin waa shayaadiinta jinka ah ee qarsoon iyo kuwa insiga muuqda yuuxii bacduhum ilaa bacdin sukhrufa alqowli guruura waxay isku akhriyayaan hadal la macaaneeyey oo la qurxiyey oo la ysku dagayo walow shaaa rabbuka maa facaluuh fadarhum wamaa yaftaruun ilaahay baa wax ka leh ujeedduu ka leeyay in nebiga la caayo ujeedduu ka leeyay ujeeddadiisa maxaa uga horreeya gaaladu inay dhiisha gaalnimada buuxsadaan oo darajo cadaabka ay ku gaadhi lahaayeen oo ka dhiman ay cayda nebiga ku gaadhaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala adduunyada uu ka salabeeyo oo ay hore u baaba'aan ayuu ilaahay ka leeyay waxaa kaluu ka leeyay ikhtibaar iyo imtixaan iyo kala saari mu'miniinta la kala saarayo waayo haddii ilaahay doono mabuu ka hadliyeen manay caayeen manay sawireen sidaa awgeed ayuu ilaahay leey walow shaaa rabbuka maa facaluu haddii ilaahay doonayo arrinkaa mabay sameeyeen markaa iyaga horta waa la ibtilaynayaayo meel daran baa laga tuurayaa dhibaatada ay ku jireenna waa loo si labanlaabaya qadiyaddaasina waxay soo dedejisaa baaba'a iyo burburka gaaladu ay burburaan waayo ilaahay baa yidhi inna shaani'aka huwa alabtar nebi allow ka ku nacab ee kuu cadhooda waa abtar dabagoos ah uu dabago'aya uu baaba'aya sidaa awgeed ninkaa haysta faransiiska ma akhriyin taariikh aqoonna uma leh hadduu taariikh akhriyey wuu ka warwareegi lahaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh waayo kuwii u bixiyey waa saaxir iyo waa shaacir iyo waa beenaale iyo waa wax kanuu sameeyaa iyo dadku isku diraa halkay mareen way baaba'een kuwii nebiga dhibay ma noolyihin maya tafiir ma leeyihin maya inna shaani'aka huwa alabtar bal culimmada islaamku waxay sheegeen oo taariikhda ku cad waxay yidhaahdeen qalcadaha gaalada markaanu mari weyno ay dagaalamaan ay mitidaan aynu mari weyno ay nebiga caayaan ayaanu farxi jirnay oon odhan jirnay waa kuwaa nebiga caayayoo maalin dhow baynu cagta marinaynaa xaqiiq bay noqon jirtay dabeetana markiiba waa la jiiri jiray kol hadduu nebigaba caayo horay buu u laalaabanaya taa iyada ha ka warwarina ama shakhsiyan buu u laalaabanaya oo u burburaya ama dowlad ahaan buu u burburaya taas waa tii gaalada innagana waa layna eegayaa bal inaynu leenahay nakhwa
dhiidi in iimaankeennu nool yahay inaynu ragnahay inaynu rasuulkeenna u damqanayno ayaa layna eegayaa dadaan marka hore muuqaninba oo aan la aqoon ayuu ilaahay dallacsiinaya oo darajo gaadhaya oo tallaabo cad oo ragnimaa samaynaya ama addin ku samaynaya ama af ku samaynaya qaar la yaqaanay oo la moodaya rag la yaab leh oo culimo waaweyn loo haystayna cagta hoosteeday gelayaan meel hoosay marayaan inta yar imka dhacdadu dhacday inta nin soo istaagay sheikhul asarku kow ka yahay sheekh la yidhaha alqarna daaqi oo turkiya oo nin weyn loo haystay ayaa waxay taagan yihiin maya yaan layna kicinin yaan laynagu guurin yaan la moodin inaynu dad fududnahay cagta aynu u dhigno siyaabo kale aynu uga jawaabno ilaa ay gaadheen yaan badaa'icda iyo qalabka faransiiska yaan la jarine siyaabo kale ha looga hortago waa ninka nebiga caaya muxuu gaadhsiinayaa buu ku leeyahy bimacnaa dad wax ahaa marka hore ayaa hoos maraya haqaafatulxamiir wax la yidhaah ayaa dadka qaar aaminsan yihin waxay yidhahdaan qolooyinkan xayawaanaadka ka warrama bahalka dameerka la yidhaah ayay tijaabiyeen waxay yidhahdeen inta bahalku ku soo socdo wuu ciyaa inta bahalku ku soo socdo waraabaha iyo libaaxa iyo caasi wuu ciyaya mar alle markuu qabsado ayuu aamusaya shib waxay yidhahdeen wuxuu leeyahy wuu kaaga sii dari isagoo xiidmihii maraya ayuu aamusayuu isleeyahay meel ka daran buu goyn doonaaye aamusnow waa haqaafatulxamiir iyagoo gaala nebigeenni maraya ayay leeyihin way inooga sii darayaane shibta gala iyo wax ka daran odhanine aamusa haqaafatulxamiir way badantay masaajiddaday xataa soo gashay bal waxaan xalay dhegaysanayay sheekh weyn oo caalim ah oo aad loo jeclaa ayaa qadiyaddaa ku simbirrixday waa saalix alfawsaan wuxuu leeyahay muslimiina ha degdegina ha boodina u kaadiya cagta u dhiga siyaabo kalaa jiroo looga jawaabee sheekha waa taqaanaaye taariikhdii saxaabada akhri oo taariikhdii taabiciinta akhri oo atbaacu taabiciin akhri marka nebigooda la aflagaadeeyo siday yeeli jireen taariikhda akhri intaasaa kugu filan ama intii aad akhriday mimarigaaga iyo maskaxdaada dib ugu celi walaalayaal dadka waa la imtixaamayaaye inaynu imtixaanka ku dhacno iyo inaynu imtixaankaa ku guulaysanno labadaasay inoo taagan tahay culimo iyo caamaba waxaa la taabtay halkii ugu khatarsanayd ee la taaban laha sidaa awgeed ciwaankaynu khudbadda u samaynay waxaa lahaa alimaam maalik waa hadal aad u la yaab leh wuxuu uhi maa baqaa'u lummati bacda shatmi nabiyiha war ummadda maxaa u hadhay haddii nebigeediiba la caayay waxba uma hadhin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah hadalkaana wuxuu yidhi mar nin nebiga caaye la xukumayey ayaa culimmada ciraaq qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen waa ninka toobad ha la weydiiyo haaruuna rashiid baa hor taagna maaligow ka warran buu yidhi isu yidhi maya maa baqaa'u lummati bacda shatmi nabiyiha maxaa u hadhay ummadda haddii nebigeediiba la caayay ninka ha la deldelo oo ha la dilo sidii baa lagu dilay walaalayaal nebigu ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday inuu difaacayo wuxuu rabbi yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin annaga ayaa kaaga filan kuwa kugu dheeldheelaya laakiin innagaa layna eegayaa bal inaynu nusrayno iyo inaynu fashilanno ilaahay waa awoodaa bal xayawaanaadku u dira ma inaad xayawaanka ka hoosaysaad jeceshahay xayawaanka qaybo ka mida ayaa nebiga u hiiliya bal dhulka aynu ku taagannahay ayaa nebiga u hiiliya aan idinsiiyo dhowr dhacdo dhacdada koowaad waxaa soo saaraya ibnu isxaaq iyo ibnu hishaam fii kutubi siira nin la yidhaahdo cutayba ibnu abi lahab oo abulahab dhalay nebiga ilmaadeeriin hablaha nebigana mid qabi jiray ayaa nebiga intuu u yimi kalarka qabtay buu ku yidhi ana akfuru biladii danaa fatadalla waxaan ka kufriyey kanaad qur-aanka ku sheegtee soo dhowaaday ee haddana isa soo laalaadiyey jibriil buu sheegaya markaasuu nebiga candhuuf ku tufay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay gaadheen kale mooye tuu buu yidhi nebigu wuxuu ihi kelmad la yaab le wuxuu ihi allaahuma sallid calayhi kalban min kilaabi ilaahay oo bahal bahalahaaga ka mida ku sallid dabeetana ninkii safar buu galay socotay israaceen shaam markay marayaan
ayaa libax soo hanqaray libax baa soo ciyey waryaadhaheen libaxaas wuu cunaya hadmiyaad waalatay intaasoo ninoo dablayaa kula socoto gaar baanu kaa qabanayna annagaa ku difaacayna maxaad la baqanaysaa walle maxamed baa habaarayoo inaanan tigaatig dhigayn maxaa marka hore watay isaga dabbay shideen gaar bay ka qabteen libaax intuu ayar soo booday ayuu keligii qaatuu la tegey dibna looma arag waa xayawaan waa asad waa libaax libaaxyadadii way jirayaan oo nebiga u hiliya haddii la waayana libaaxii rasmigahabaa u hilinaya kaasi dhacday ahayd dhacdada labaad waxaa la odhan jiray nin la idhaa ibnu qami ah oo quraysh ka mid ah ayaa maalintii uxud nebiga soo gaadhay darbad buu ku dhuftay seef ah sudhi khudhaa minii wa ana ibnu qami ah iga hoo ibnu qami ah la yidhaah u dhaadanaya madaxuu kaga dhuftay nebiga laakiin koofiyad bireed buu xidhnaayo koofiyaddii baa hoos u gashay nabar yar bay gaadhsiisay laakiin wax badan oo kale ma ay gaadhsiin nebigu wuxuu ku uhi aqma'aka allah alla ha ku halaago ninkii wuxuu u tegey buuruhu fuulay adhi uu lahaa buu isiri raadi markii dagaalku dhammaaday taysuljabal waa goodirka bahalkanu dhaa ee geesaha waaweyn ayaa hirdi ku bilaabay siduu hirdi ula dhacayey ayuu buurtii kaga tuuray waa buuro dhaadheer oo ninka ka shalwada aan u soo noqonay dib looma arag ibnu qami ah aqma'aka allah waa goodir taagow goodir baa nebiga u hiilinaya adiguna waxaad leedahay nin muslinaan ahay kadibna laa yartaficu laka sha'n walaa tanbus bibinti shafa oo wax la yaab leh dhacdada saddexaad waxaa soo warinaya ibnu xajar alcasqalaani waxa uu leeyahay alimaamu dahabi buu ka soo raraya imaamu dahabina wuxuu ku warinaya kitabka la mucjam shuyuukh wuxuu leeyahay nin mongolian ah qolada tataristan ayaa kiristaamoobay kiristan ku qaadanayay xaflad baa loo qabtay xafladii waxa ka hadlay nin bob ah nebigu caaya ku fogaada halkan ay baa ku xidhan nin baa kuli war aygaa guuxaya wallaahi wuxuu ka xanaaqsan yahay waxaad ka hadlayso harka ma hadlaye aygani waa ay isla weyno laba gooran farta ku fiiqay buu ka xanaaqsan yahay buuri bal waaye ku celi buuri aanu tijaabine caydii buu ku celiyey silsiladii buu soo goostay hungurigaasuu kala gooyey goobtii buu ku geeriyo sheekha ka warinaya wuxuu leeyahay goobta ayaan taagnaa cidi iigama warramine anaa goobjoog aha waa kalb min alkilaab maxaad u malay bini aadan muslim sheeganaya waxa soo raaca walaalayaal dhulkaa ilaahay baa nebiga u hiilinaya wuxuu warinayaa ibnu taymiya isagoo ka warinaya bukhaariga kitaabkiisa la saarim almasluul baan anugu ka arkay bukhaariga kama eegin wuxuu leeyahay nin baa jiray kiristaan ahaan jiray wuu soo islaamay dhowr suuradood buu bartay suuradihii ka bacdi uu bartay ayuu dib u gaaloobay gaaladiina wuxuu ku yidhi maxamed muxuu yaqaanaa anaa u qori jirayoo wax alla wixii aan u sheegun buu odhan jiray iska qor waa iska caadiya qor beentaasuu sheegay wuxu uhi maxamed anuu i raaci jirayoo markaa idhaa caliimun xakiim ayuu idhaa waa iska wad waa caadiye saa idhaa samiicun kafuur su idhaa waa caadiya wad ninkii baa geeriyooday way aaseen dhulkaa soo tufay habeenkii bay arkeen ninkii aaseen oo bannaanka yaalla waxay dhaheen maxamed qaar buu u soo diray baleeg xalay bay fadheen meel kaloo fog bay ku aaseen dhagaxaan waaweyn iyo salaxyo ku awdeen habeen labaadkiina waxay arkeen isagoo bannaanka yaalla dhulkii soo tufay waxay dhaheen wallahi kana uu ka daba tegey meel saddexaad bay ku aaseen aad bay u adkeeyeen habeen saddexaadkiina dhulkii waa soo tufay markii bay yidhaahdeen waar kan cidimo qodaysee dhulkaa nacay bannaankii bay kaga tegey bannaankay kaga tegey markaa walaalayaal ibni aadamkii iska daa muslimiintii iska daa ilaa xayawaanaadkii iyo jamaadaadkii ayaa nebiga u hiilinaya adigu booskeed kaga jirtaa qodobkaa markaynu ka baxno walaalayaal waxaynu u gudbaynaa qofka nebiga caaya caddaan iyo madow kuu doono ha noqdo soomaali iyo isirada kale kuu doono ha noqdo dalka aynala jooga ama ha maqnaado qofka nebiga caaya hadduu islaam ahaan jirayna waa kaafir hadduu gaal ahaana oo ballan lahaa ballantiisu way jabaysaa in la dilaana waa waajib dhammaan in la dilo culimmadu waxay isweydiiyaan oy ka doodaan ma toobad buu leeyahy mise ma laha waa qadiyad fiqiya toobad baa la weydiinaya mise ma laha laakiin inuu dil mutaystoo la dilayo hadal kama taagno sidaa awgeed baa culimmadu waxay yidhaahdaan dhulka xukun islaam ka jiro waa in maxkamadda islaamka la geeyaa haddaan xukun islaami ka jirinna
awoodaa la eegayaa haddaad fulin kartana fuli haddaanad fulinayna laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa awooddaadaa la eegaya marka walaalayaal gaalada innaga ma wada joogno gaar ahaan faransiiska iyo kuwa ku taageeray ma wada joogno laakiin waxaynu la gaadhi karnaa waxa weeye inaynu ilaahay u barino oo aynu habaarno in ilaahay subxaanahu wa tacaala calaamad degdega nimankaa caadaystay ee dhaqanka ka dhigtay in ilaahay calaamad degdega ka muujiyo maxaad tidhaahdeen ilaahay calaamad degdega ha ka muujiyo ilaahay carradooda ha gediyo xagga kale alla ha u rogo wax qalbigeennu ku qabooba allah inaga tuso taa waynu awoodnaa ta labaadaynu awoodnaa waxay tahay dhammaan wax alla wixii masaalix iyo dana faransiisku leeyahy iyo kuwa ku taageerayba inaynu jarno gaaladu meel bay ka damqadaan waxay ka damqadaan adduunyada maanta markii la yidhi ha la godoomiyo oo ha la joojiyo badaacidooda iyo qalabkooda way ooyeen luqadu walba way ku baroorteen halkaasay ka damqadaan wax alla waxaynu ognahay faransiis ka yimaada cadar ha noqdo marya ha noqdo qalab kale ha noqdo in la joojiyo baayac mushtarkuna intaa ilaahay ugu dhowaadaan xaqa rasuulkana wax ka mida ay soo celiyaanoo intay alaabtaa meel ku xidhaan ay yidhaahdaan alaabtaa lamana iibinayo lamana iibsanayo taasina waa dariiqad aad iyo aad u wanaagsanoo way damaqdaa gaalada waayo waxay yaqaanaan adduunyada intaasay ka yaqaanaan qodobka walaalayaal inoo soo raaca saddexaad wuxuu yidhi innaga maxaynala gudboon linusrati nabiyina kow waxaynala gudboon inaynu baranno nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh siiradiisii iyo magacyadiisii iyo abtirsiintiisii iyo taariikhdiisii iyo ubadkiisii iyo akhlaaqiyaadkiisii waa inaynu barannaa ma naqaano qofkuna waxaanu aqoon jaahil buu ka yahay wuxuu jaahilka ka yahay cadow buu leeyahay oo ma yaqaan waa inaynu barannaa waa inaynu ubadkeenna barnaa waa inaynu ooryaheenna barnaa waxaynu kaga adkaanaynaa nimankaa inagoo duruus siiraa guryaheenna ka bilowna oo ka aan isagu dhigi karayni cajaladaha u soo duubto oo reerku wada dhegaystaan oo nebigooda bartaan wuxuu leeyahay taabicigii la odhan jiray qaasim ibn muxamed kaanuu yucallimuunana maghaazi nabiyina kamaa yucallimuuna suurata min alqur'aan saxaabadu qur-aanka siday noo baraan ayay siiradana noo bari jireen waa inaynu baranaa kow maxabbatuhu inaynu jeclaanno jacayl dhab ah oo qalbiga u dhaadhaca oo afka baarkiisa ahayn jacayl daqiiqad iyo elbirslibiksiya waa inaynu jeclaanaa maaha kan habeenka keliya lasoo ambabarayo ee sanadka dhan aad mooganaanayso kaa jacayl lama idhaaye kii dhabtaha wey waxaynu qaadanaynaa walaalay qodobka saddexaad oo ah itibaacu sunnati inaynu sunnadiisa qaadano nebigaagii haddaan adigiiba adeecay oo sunnadiisii qaadanayn oo aanay salaadaadu salaadiisii ahayn oo aan soonkaagu soomkiisii ahayn oo meheradaada aana sharcigiisii ku maamulayn oo gabadhaada sidii nebigu u xijaabi jiray aanad u xijaabayn iyo xaaskaaga iyo ubadkaaga maxaa sunno ku sheeganaysa haddaad garhkiiba deebinayso oo subax walba makiinad kula kallahayso ma adigaa nebiga markaa ka hor jeeda se gaaladaasa ka hor jeeda haddii maradaadii shullaha ad dhigayso oo halkuu ku yidhi jooji aad joojin kari la'dahay maxaad gaal ugu bu'i adigiibaaba naftaada ka adkow waa in sunnadii la raacaa waa tusaalayaal inta kale waa ka badan tahay waxaa ka mid a walaalayaal altaxaakum ilaa sharci maalintaa ciis qabataan waa in shareecadiisa la ysula tagaa haddaa adiguba shareecadii ka boodsan tahay oo aanad shareecadiiba isula tegayn maxaad markaa ugu hiilisay wey maxaad ugu dhiidhii waa qodobka afraad qodobka shanaad wuxuu yahay shareecada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii aad faafin karta inaad faafiso qodobka lixaad waxa weeye wixii aad ugu hiilin karto af iyo adin iyo qoraal iyo cajalado la faafiyo iyo dhaqaalo la bixiyo iyo dacwadoo laga qayb qaato iyo madaaris la dhiso iyo kutubo la daabaco wax alla wixii aad qaban karto waa nusra waa hiilin ilaa tansuruuh faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا qodobka ugu dambeeya walaalayaal wuxuu yahay inagoo nebiga u hiilinayna
oo jeclaanayna oo garabkiisa taagan oo sunnadiisa baranayna waxaa laynoo oggolayn inaynu ku qulwino inaynu ku xadgudubno inaynu heerkiisa dhaafinno heer baa la gaadhsiiyey waa addoonka addoommada ugu horreeya halkaa ma dhaafo rabbinimo ma gaadho isaga waxba lama weydiiyo lama baryo lama caabudo nebigu ammaantiisana heer bay leedoo cabdullaahi wa rasuulu lama dhaafiyo isagaa ka digay wuxuu idhi laa tudruunii waan ammaantayda ha ku taraarina kamaa adrat innasaara bnu maryam sidii qolada nasaaradu ammaanta ciise ugu taraareen ha ku taraarina innamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuul taraariddaaynu taraaraynaana innagaa ku lugo-ayn shirki baynu ku dhacaynaa ama bidacaynu ku dhacaynaa innagoo moodayna inaynu saxanahay ayaynu kharibnaanaynaa taana waa inaynu iska ilaalinnaa ugu dambayn walaalayaal dalkeenna dad muslimiinah oo dhiidhiyey ayaa waxay ka mudaharaadeen gobollada qaarkood runtii si wanaagsan bay yeeleen shucuurkooday muujiyeen inay ka xun yihiin bay tilmaameen kuwa xumaantaa sameeye edabta daran siday u necab yihiin ay uga soo horjeedaan ayay muujiyeen khayr bay faleen innaga laakiin magaaladeennu waa ka weyn tahay waxaan filayaa haddii lays idhaahdo mudaaharaadkuna waa qodob sharciya mar baynu ka hadli doonnaa laakiin dawaabid buu leeyahy innaga waxaynaan maamuli karayn tuugta iyo nuugga waxaa laga yaaba haddii laysla mudaaharaada inay u dhex raaciyaan oo meheradaha jajabi oo gawaadhida burburi oo meheradaha xad haddii cid la maamuli karaa ay jirto oo meel keliya la isugu keenayo waa wax wanaagsan haddaan la maamulayna balaayo hadhowta aanad maamuli karayn lama istaano sidaa ogeed walaalayaal dadkaa muujiyey ee weliba sidaa cajiibkaa u muujiyey aad baan u taageeraya waa hambalyeynaya innagana ciddii ismaamuli kartaa way muujin kartaa haddaanay laakiin maamulayn mafaasidda iyo balaayada lama horkaco waayo gacmahaagay ka baxaysa taana waxaan leeyahay xaaladda un ha la diraaseeyo kolba siday noqonayso gaaladaana af iyo adin ha lagala colloobo qalbigana ha laga gooyo ilaahay bay naceen oo islaamkay naceen oo rasuulkay naceen oo innagayna necabiyey markay isku kaa dhadhejinayaan waxbaa kaaga muuqdee wanaag iyo waxtar ma oo waxyeello waa xumaan ilahay waxaan weydiisanaynaa kuwa diintooda u nool allah inaga yeelo kuwa nebigooda garab taagan allah inaga yeelo kuwa diinta difaaca qalbiga iyo qaalabka ka difaaca allah inaga yeelo ilaahay diinteenna kuwa ku dhaqma ha inaga yeelo camalkeenna camal saalixa allah ha ka dhigo ilaahay qalbigeenna qalbi saafiya ha ka yeelo caqiidadeenna caqiido saliima allah ha ka dhigo kuwa muslimiinta ah ee meel walba ku dhibaataysan ilaahay dhibkaa ka dulqaado mujaahidiinta allah u gargaaro gaalada allah ha